madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo ayaa toddobaadkan booqan doona magaalada Beijing ee caasimadda waddanka Shiinaha. madaxweyne Putin ayaa lagu wadaa in uu la kulmo madaxweynaha dalka Shiinaha Xi Jinping iyagoo ka wada hadli doona arrimo dhowr ah oo saldhig u ah xoojinta xiriirka soo jireenka ee labada dal oo wadamada Shiinaha iyo Ruushka. safarka madaxweyne Putin uu ku tagayo dalka Shiinaha qaasatan magaalada Beijing ayaa loo fasiran karaa in uu qayb ka yahay ballanqaadkiisii hore ee bishii February sanadkii 2022 ee uu ku sheegay in xiriirka ka dhaxeeya wadamada Shiinaha iyo Ruushka inuu yahay xiriir aan xuduud lahayn. waxaana xusid mudan in kulanka madaxweynayaasha wadamada Ruushka iyo Shiinaha ee ka dhacaya magaalada Beijing in uu yahay mid ay si gaar ah isha ugu hayaan wadamada reer galbeedku, gaar ahaan waddanka Mareykanka oo tartan siyaasadeed, mid dhaqaale iyo weliba mid ciidan uu kala dhaxeeyo labada dal ee Shiinaha iyo Ruushka.